hees baa waxay odhanaysay ragow haddaad dhegaleedihiin ragna ayalaad tihiin haweenku marwaydin dhalay caloosha dhexdeeda iyo lafdhabartu iyadoo guud ahaanba sanad waliba 8 maarso caalamka si weyn looga xuso xuska maalinta haweenka adduunka ayaa sidaas oo ay tahay waxa si weyn looga xusay magaalada Boorama munaasabada oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa iska kaashaday dawladda hoose magaalada Boorama iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Awdal waxaana ay kulmisay madax uu horkacayo xildhibaan Axmed Khayre agaasimayaasha arrimaha bulshada cudurta shaqaalaha ee dawladda hoose isku duwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada madaxda ururka haweenka ee NOW iyo badiba haweenweynaha ku dhaqan magaalada Boorama waxaana mas'uuliyiintii kala duwaneed ee madasha ka hadashay ay istul taageen muhiimadda maalintani iyo qiimaha ay haweenku ay leeyihiin marwooyin maanta waxaynu joognaa maalinta caalamiga ah ee la xuso maalinta haweenka 8 Maarch haweenka reer Awdal waxaan ku amaanayaa oo aan ku dhiirigelinayaa dadaal kasta oo ay sameeyeen intii sano ee ay waxbarashada heleen waxa kale oo aan ka wasaarad ahaan aniga ku hadlay afka wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska oo aan ahay suduwaha gobolka Awdal in ay wasaaraddu mar walba u taagan tahay gacan qabashada wax ka bedelka iyo habka nololeed ee haweenka iyo marwooyin waan ku faraxsanahay inaynu maanta u dabaaldegayno maalinteeni waan ku faraxsanahay inaynu maanta wadaagi doono xogo ku saabsan guulaha aynu ka gaadhnay dhowrkii sano ee aynu ugu dambeeyay inkastoo haddana maalintii adduunka dee laynagu daray alxamdulillaah waxaan leeyahay maanta hooyooyinka islaamka meel kastay joogaan salaam baan u dirayaa dhammaan Soomaaliland marwooyinkayga sharafta leh haweenweynaha Soomaaliland waxaan ku wada salaamayaa salaanta islaamka hooyooyinkeena intii dhimatayna Allah u naxariisto inta cudurana Allah caafiyo inta dhibaataysan dhibaatada Allah ka saaro hooyooyinku lama halkan u asteysanahay oo inoogu qoran maalinta haweenka adduunka hooyo maalin walba way leedahay inaan iyaynaba haweenku maalin kasta iyaga leh laakiin waa maalin la asteeyay oo la leeyahay hal la xuso waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan haweenweynaha adduunka meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan hooyooyinka Soomaalidu meel kasta ay joogto magacaygu waa Deeqa Faarax Araale waxaan ka socdaa dalada danyarkaab maanta halkan waxaan sugu nimidnay waa maalintii haweenweynaha ee adduunka ilaahay baa mahadleh halkan sugu keenay maanta mahadna ilaahay bay ugu sugan alxamdulillah walaalayaal waanu ognahay haweenku waxay yihiin haweenku waa aasaaska adduunka waa halka laga soo ulkamo waanu ognahay hees baa waxay odhanaysay ragow haddaad dhegaleedihiin ragna ayalaad tihiin haweenku marwaydin dhalay caloosha dhexdeeda iyo lafdhabartu weeyaan waxaan leeyahay haweenku ha jiro ha joogo haweenku waxa loo jecel yahay waxa weeye hadaanay iyagu jirin wax rag la yiraahdo ma jirin ilaahay baa mahad la suuq keenay goobtan quruxda badan iyo maalintan weyn aniga farxad gaar ah sameynaysaa waxa weeye in dumar inta leego hooyooyina walaalaha hablaha isku jira qaybihi kala duwan ay degmada halkan isku yimaadaan annaga dawladda hoose ahaan sharaf ay noo tahay hadeedna inay saan ka sii qurux badnaato kulamaynta ka weyn isku nimaadno ayaan insha Allah rajaynaynaa maanta waa maalintii haweenka adduunka dumarka haweenka adduunka oo dhan waan hambalyeynaya kuwa islaamkan hambalyeynaya kuwa Soomaaliland baan hambalyeynaya waxaan leeyahay dumar la'aantood adduunyadu ma dhaqaaqayso dumar la'aantood cidima shaqayn karto nin kastoo la arkay oo meel ka soo baxay hooyo amba xaas baa daba taagan gabadhiisa amba daba taagan amba hooyadii baa daba taagan ma jira nin keligii taagan ay taaka inaan dadka ugu horeeya madasha fadhiyada ahaado maadaama maanta ay tahay maalinta ugu muhiimsan sababta ay ugu muhiimsan tahayna tahay maalinta haweenku waa maalinta ugu weyn dunida khayraadka adduunka yaala human resource baa ugu qaalisan warshada soo saaraysayna waa haween marka kaalintiinu
way ka muhiimsan tahay cid waliba waana ogsoonahay idinmana fudeydsan idinmana yareysan idinmana dhayalsan ahmiyad gaar ah noo leediin in haweenka dhiirigelintooda horumarintooda ka warhayntooda garab istaagooga iyo had iyo goor ale u dhiganuglaashahoogaba priority number 1 bay noo tahay haddaan nahay dawladda hoose ee degmada Boorama anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka degmada Boorama ahna gudoomiyihii arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee degmada Boorama waxaan leeyahay maanta waa maalintiinii hambaliyo Cabdirasaaq Umar Macadowliyo telefishinka CBA Boorama